12 bisha Rabiicul Awwal oo ku beegan habeenkii uu dhashay suubanaheena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sanad walbana laga xuso badiba dunida islaamka ayaa waxa si ballaaran looga xusay xarunta Rabiiciyada ee degmada Xudun ee gobolka Sool. Munaasabada Mawlidka Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa soo qaban qaabiyay xeerta Sheekh Maxamed Rabiic waxaana xuska dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka soo qayb galay midowga ugu waaweyn xeerta Sheekh Maxamed Rabiic iyo culimo kala duwan kuwaasi oo ka kala yimid deegaanada fogfog waxaanay munaasabadu u dhacday sidan. صلاتي وسلامي عليك يا جبار quraan akhris iyo digri kadib waxa halkaasi dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi kala hadlay Sheekh Ibraahim Cabdi Dirir, Sharif Maxamed Sharif Cabdiraxiin iyo Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Cali Jaamac kuwaasi oo ka sheekiyay siiradii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee aabihii la arkay markii uu dhashay nabigu. Sidoo kale muhiimadda ay leedahay in la xuso habeenkani ayna bulshadii ka soo qayb gashay munaasabada ugu xusayay dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kula dardaarmeen raacaan dariiqii wanaagsan ee Nabi Maxamed. walaalayaal waxa weeye caawa habeenkii mawlidu nabawiga bishii Rabiicul Awwal 12 weeye habeenkii nabigeenu dhashay weeye calayhi salaatu wassalaam. habeenka rasuulku dhashay waxa la sameeyay xaflado waaweyn oo nabiga loogu dabaaldegayo dhalashada rasuulka. xigmadaha ku jira way aad bay u fara badan yihiin. waxa weeye xigmadda koobaad ee ugu horeysa waxa weeyaan in ilaahay aynu ugu shukrino hibada iyo hadiyada uu ina siiyay oo rasuulkeenu ugu horeeyo quraanka kariimka iyo iimaanka uu ilaahay inoo soo dejiyay ee nabiga inoo soo mariyay shukri aynu ilaahay ugu shukriyayno baa xigmadda koobaad taasi weeyo. ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa rasuulkeena dhalashadiisa iyo diridda ilaahay noo soo diray iyo allahumma salli ala muhammadin hanuunka ilaahay nagu hanuuniyay iimaanka alla inagu siiyay iyo aakhiro rajada aynu ku rajaynayno rasuulka inuu maciisa ahaano. taasi waa shukriga koobaad oo ilaahay quraanka ku cadeeyay la in shakartum la asiidanakum ba ilaahay quraanka ku yiri hadii aad ku mahadnaqdaan waxaan idinku nimceeyay la asiidanakum waan idin siyaadinaya ba ilaahay subhanahu wa ta'ala. marka inagoo rajaynayna shukrinaqeena in siyaado inooga ratibanto iyo iimaan siyaada iyo darajo siyaada iyo fadli siyaada iyo shafaacada nabiga aynu ilaahay nasiiyo iyo allah. waxaanu caawa ka hadlaynaa halka fadhina xawayaan aynu iskugu nibi rasuulka dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam. kana markii la weydiiyay maalinka isniinta aad soomayso rasuul allah maxaad u soontaa wuxuu yiri daaka yawmu wulitu maalinkaasi waa maalinka la dhalay. marka xadiiska maxaa ku cad rasuulku dhalashadiisii inuu ku weyneeyay shay cibaado ah. annaguna waxaanu ku weyneynay siiradiisii inaanu ka sheekayno qur'aan inaanu ku akhrino inaan maxabadiisii rasuulka laga warramo in la isku dardaarmo sadaqo lagu bixsado oo dadka meesha la isku yimi sadaqo lagu bixsado. sidaa daraadeed islaamku waxa weeye inuu kor qaado habeenka iyada oo muujiyo qofkii nabiga jecel saas u ahaanaya qofkii nabiga nacabna calayhi salaatu wasalaam ahaana yuxmaan iyo maartay nabiga in la xaqiro buu raali ka yahay. alaa la maxabbata liman la iimaana lah alaa la maxabbata liman la iimaana lahu saddex goor nabiga calayhi salaatu wasalaam ku celceliyay iimaan bambare qofka aan maxabba lahayn